العاونات العقد الدولة أي soo dirayso lixdan pound oo korontada loogu talagalay caawinaadeeda dad badan oo la isticmaalinaa jiro dadkaasi jood waxaa dadka oo weliba oo miitarkii hore ugu jiro waa kan top-upka miitarka lasoo cabaysanayo dadkii hore ugu jiray waaye marka smart meter hadaa qabtid waa kambaniga asaa kuugu soo shubay badanaaba waa loogu soo shubay gabar dariskeyga waa loogu soo shubay October labadeeda waa loogu soo shubay November bishan hadda lagu jiro maanta afarta labadeedana waa loogu soo shubay waa lii soo shubay smart meterka oo top-up ayay qabtaa iyada annaga waxaan qabnaa smart meterka oo biilka ahaa guriga aniga iigu jiro kayga waxaa waaye waxaan sameeya waxaa kambaniga waxaa biilkayga intaysan ii soo dirin ay ka gooyaan lixdan pound markay ka gooyaan biilka halaha ii haray ay ii soo direen aniga marka waxuu ahaayey qof walba si waay laakiin dad waxaa jira oon weli helin oo miitaradii hore dadka ugu jiro oo weliba isticmaalin ama loo soo diray weli isticmaalin bouncerka malaha ay isle dhaqaalayso intii oo qaboobaha ka imaanayo marka bouncerkanitu 3 bilood uu ku egyahay haddii ay kuu taalo horey ka isticmaal haddaysan kuu oolinna aysan kaa gubanayna kambaniga wac caaway leh wuxuu ahay laakiin dadka badanaa smart meter daaqatid oo top-up ah kan lagu soo shubanayo cabayska ah waa iyagaa kuugu soo shubay toos kuugu soo shubay haddaana lagugu soo shubinna kambaniga warayso caaway lacagtiga haddaad kan kale aa qabtid wuxuu ahaayey oo kii duqa ahaay oo weli aan lagugu soo shubin aan lagugu soo dirin voucherka maxaa jira voucherka waa inaad dukaamaha adiga tagtid aad dhahdid saas aa ugu soo shubatid kiigaaga ama kaarkaaga aa isticmaashid aa u geysid marka si lagugu soo cadeeyo saas marka iyo idin gafin lacagtaasayto dad badan oo weli aanan isticmaalinaa jira haddii loo soo diray dad badan oo muxuu ah malaha aanan loo soo dirin oo aanan ka warhaynin ama dhaqaalaysanayo fadlan yaysan idin gafin 3 bilooday ku egtaa way gubanaysaa 3 bilood kadib haddana tii kala wuxuu ahaa yaysan idin gafin marka horey ka dalbada haddaadan haysanin kambaniga waca salaamu calaykum